aaba maxamed cabdi xaashi loona garan og yahay diini waa aaba muddo dheer ahaa shaqaale dawladeed 1975 ayuu bilaabay shaqada dawladda hoose magaalada Boorama. aaba maxamed cabdi xaashi diini oo maanta aan kula kulmay mid ka mid ah hoteelada magaalada Boorama ayaa waxa uu sheegay in muddo 7 bilood wax mushaar uusan qaadan joojinta mishaarka iyo waxa uu sheegay inay tahay cunsuriyadu kala kulmay meeyirka degmada Boorama Saleebaan Xasan Xaddi maadaama dhibane maxamed xaashi cabdi diini uu deegaan ahaan uusan ka soo jeedin degmada Boorama waxa weeye wax adduunya oo hanti lagu leeyahay konton iyo sano shaqeynay waxa weeye ma jirto shan buug baan hayay shantii buugna waxaan u dhigay arday yaa u dishay ilaa hadda wuxuu yiraahdaa buugtii ma keenin ka hadda waa buugtii looga sheegay hanuunta waxa weeye wuxuu ugu sameeyay cusuriyad waxaan reeboon uga baran ka dudub iyo ninkan waa laba nooc Soomaaliyeed kaasna waxa weeye mushaarkii kordhiyay ummadda waxa weeye shaqaaleeyanaha maanta xulka ka degan aan shaqada laga fursiiyay xilkii laga qaad shaqada qaybta cashuuraha gurtana ma ilaa aqoon reeboorba awdal ma jirto ilaa saylac ilaa loo haya waxa weeye uu cusuriyay mushaarkii baan ku leeyahay imka bishii lixaad baa ii socota oo mushaar aan qaadan sababta inta jiifo waan bukay waxa weeye ima soo dul istaagin shaqaalihiina waan ahay war maxaa qabtaa inuu oran uu xiray shanta buug igu haystay shantii buugna waan u keenay percentage aan ku lahaa boqolkiiba 30 baan ku lahaa ima siin wuu haystaa mushaarkii wuu haystaa waxa weeye wuxuu ibaday ciil iyo caro colaad uma qabo dadka Soomaaliyeed ninka awdalaanahay Boorama deganahay guriga ku leeyahay ninkaas wuxuu igu sameeyay waxa weeye waxaan arag la maqbay igu sameeyay aabihii oo meeyda iyo abtidii noo dhibin aan wax ka aasaarin oo lacagtooda isku aastay aabihii waxa weeye wuu idilay wuu karaama siin waayay bilaadanah uga soo qaadi waayay waxa ummadda islaamka lagu sameeyay igu sameeyay ilaa yoom hada waxa uu sheegaya dawladda Soomaaliland in uu cusriyay waxa weeye 550 qof oo shaqaalaha shaqeeya aanu beega dhaxsaaray oo maraxaan baatay u leeyahay waa ruwaay maraxaan baa laga leeyahay laakiin afdal bana waa deganahay wadaatay gabar deegaanka ka qaba waxa weeye uu cusriyay waxaan ka cabanaya waxa weeye intaas soo mushaarkeygii oo waayay percentage aan ku lahaa lacagta leeysiin waa la cusriyay ciidi carar la jifa waxa weeye wiligiina waxa weeye ninka shaqaalaha ugu horeeyana 1975 baan shaqada ka bilaabay 1975 ka bilaabay shaqada waxaan ka shaqeeyay la immigration officer banka waxaan ka shaqeeyay Hargeysa loo hayanka taliyaan loo soo darka wajaalanka waxa weeye inta soo shaqeeyay antii 75 baan shaqeeyay shaqada bilaab ilaa yoom hada waa shaqeeya waxaan ku sheegay laqaadaro intaasoo kaliya ma ahayn sidoo kale aaba cabdi xaashi diini waa aaba xanuunsanaya sidoo kalena waxa uu sheegay in muddo 20 cisho uu ku xidhnaa saldhigga dhexe magaalada Boorama xadhigiisa ayuu igu sheegay inuu ka dambeeyay meeyirka degmada Boorama Saleebaan Xasan Xaddi magdaro idilay wuxuu idilay anoo shaqeynaya shaqada iga joojiyay xariga igu saldhigga booliska waa la xiraa dinta laga baxnaa waa taashan ku xirsan saldhigga booliska warshada bugta isii oo xisaabiye inuu yiraahdo soo waajima saldhigga gursi waxa ku sheegaya waxa weeye arxan male marka dambe ayaa ku soo daayay mar haddii soo waxa ay soo daayay jaamac la yiraahdo jaamac Yuusuf la yiraahdo iyaga soo daayay saldhigga booliska Cabdiqaadir iyo Cabdiwahaab oo kamid ah dhalinyarada magaalada Boorama oo iyaguna goobtaasi joogay ayaa waxay si dareen leh uga hadleen dhibaatada haysata aabahan waxaana ka dhawaajiyeen wuxuu noo sheegay maxamed cabdi xaashi inuu ka soo jeedo dhalasho ahaan degmada Caabudwa laakiin uu Boorama inta oo dhan ku barbaaray qof Soomaaliyeed oo muwaadin Soomaaliyeed ah dawladda oo sana ka hawlgeliyay muddada inta 75 ilaa maanta
ahna nin reer Boorama oo rasmi ku ah oo degan oo xaaskiisa iyo carruurtiisuba reer Boorama yihiin waxa nasiib darra halkan isagoo ku ooyo oo ilintu ka socotaan kula kulanay wuxuu noo sheegay inuu 7 bilood mishaarkiisii dawladda hoose una siin maayirku oo hayb soocay oo midabta kooray waa nasiib darro in degmo la hormariyay suugaysay raawda loo reer Boorama de duqaydii baa soo soo wilmaynaysa ninka duqaydii ka ilmaynayso umalayn ma inuu degmo hor sida uu noo sheegay waxa hayb soocay oo midabta kooray oo sagaalo ka tan shaqaalaha ka dhax saaray kligi maayirka hadda degmada ku soo noqday anigu maayir ma aqoonsaniye maayir ku sheeg baan u aqaana ninkaas hayb soocay waxaan barta kula kulanay isagoo ooyaya oo ilmadu ka daayso anagu rajo iyo ifafaale kama qabno maayirkan waqti xaadirka waqtigiisu gabaabsiga galay وعمران حسين آدن ورارك مقبايا تلفزيون كعالمي ستار تي في بورما